Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha waa salaamantiin meel kastoo dulan daafeed ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena update-ka box office-ka maanta inta badan barnaamijkeena galinka hore waxaa kaga bogan doontaan aflam tiyaatarada saaran ganacsada ay sameynayaan laakiin intaan guda gelin barnaamijka haddaa janalka cusub tahay subscribe noo saaranay loobin inaa muuqaalka laakiin noo saarto marka hore waxaan ku bilaabi doonaa subaxnimadan hore saaxiibada qodob xasaasi ayaa taagan kaasoo ah rambiirka burasharaadha kabuur halkii duubistii ka socotay filimkooda ayaa dab xoogan ka kacay sidoo kale khasaare laxaad lena waa laga soo sheegaya sidaan ka warqabna rambiirka burasharaadha kaburo filim weli aan magac loo bixin ayay duubayaan sidoo kale filimkan waxaa directorka ninka lagu magacaaba lufrajan ogaada filimkana meelo badan ayaa lagu soo duubo gudaha isbiila lagu soo duubo xitaa qaaradda afrikana way tageen laakiin tiimka waxay ku sugan dhankaasi gudaha Mumbai sida daraaddeed waxaa isku diyaarinaya in setka filimka halkaas Mumbai duubisa ka bilaabato laakiin saaxiibada waxaa dhacay khasaare laxaad leh maadaama meesha loogu targan filimka lagu duubo dab xoogan ayaa ka dhacay sidoo kale 3 dabaq ayaa xitaa burburay xitaa waxaa la sheegay ninka lagu magacaabo Farajan qalab fara badan halkaas u yaal sidoo kale setka duubista filimkana khasaare laxaad leh burburna oo ku imaaday sida hadda ay soo daabacay shabakada loo yaqaan ay tahay sidoo kale goobkaas waxaa loogu talagalay in hees lagu duubo sidoo kale ku dhawaad 400 qof ayaa filimka ama duubista heesta qayb qaadanaya laakiin waxaa la leeyahay meesha dab xoogan waa dhacay khasaare laxaad leh waa laga kulmay xitaa dhimasho dhaawacna waa la soo sheegay sidoo kale dadna nolol iyo geeri ayaa lagu laayay sida daraaddeed waxaa la leeyahay meeshan waxa soo gaaray qolyaha dabdamiska sidoo kale dabkii xooganayna waa la damin laakiin qabarka jir oo wanaagsan wuxuu yahay filimka saaxiibada setka kale ay tiimka diyaarinayaan Ranbir Kapoor iyo sidoo kale ninka Ranbir Kapoor iyo lagu magacaabo Sharada Kapoor goobka duubista maysan soo gaarin xilliga uu dabka ka kacay meesha sida daraaddeed warkaan taageerayaasha labadan jilaan way ku farxeen maadaama saaxiibada qiimaha badan labadan jil ay ka mid yihiin jilayaasha lagu jecel yahay buluudka laakiin Lufrajan ninka lagu magacaabo khasaare laxaad leh ayaa soo gaartay sidoo kale burbur xoogana oo jira sidoo kale waxa la leeyahay ilaa maantadana dad nolol iyo geeri lagu laayay bal markaan waxaan soo laaban doonaa arrimaha ganacsiga aflam tiyaatarada saaran ganacsada ay sameynayaan aan fiirin doonaa waxaan ka bilaabaynaa filimka weyn lagu magacaabo Ramaro Unduito hogaamiyaha boqorka xaragada Masmaraja Rafiteja filimka maalintiisa kooda qabsamay isla fiirin doonaa laakiin intaan gudu gelin maalinta kooda ganacsiga uu sameeyay bal marka hore waxaan isla fiirin doonaa filimkan xujada hortaala iyo lacagta lagu iibsan filimkan deegaanka laga leeyahay Telugu waxa lagu iibsaday lacag gaarayso 15 karoor suuqyada kale oo Hindiya ku yaalan waxa lagu iibsaday lacag gaarayso 1 karoor overseas kam suuqyada caalamkana filimkan waxa lagu iibsaday lacag gaarayso 1 karoor wadarta guud filimkan lacagta lagu iibsaday waa 17 karoor 17 karoor ayaa filimkan lagu iibsaday soo dhameystir u noqdo waxa laga rabaa inuu dib u soo lacag gaarayso 18 karoor sida daraaddeed waxaan isla fiirin doonaa filimkan diiwaankiisa iyo waxa uu qabsoomay deegaanka laga leeyahay filimkan dhankaasi Telugu canshuurta koor diiwaankiisa wuxuu soo xaray lacag gaarayso 4.25 karoor qolay ajardaha qayb waxay ka heleen saami gaaray 2.82 karoor hindi inteeda kale kaliya filimka waxa ka keenay lacag gaarayso 25 lakh sidoo kale offices suuqyada caalamkana oo ku liitaa maadaama kaliya uu ka keenay lacag gaarayso 35 lakh wadarta guud filimkan ganacsigiisa waxa loo yaqaan World Gross dibadda markaan isku darno wuxuu soo xaray lacag gaarayso 6 karoor qolay ajardaha qayb waxay ka heleen saami gaaray 3 karoor bar istilna filimkan ganacsigana kuma filna maadaama laga rabo filimkan 18 karoor inuu gaaro darajadaas waxay kaga dhiman tahay 14 karoor bar markuu dib u soo celiyo ayuu filimkan kaliya hid noqon doona sida daraaddeed waxa la yiraahdaa Ramaro Unduito inuu badbaadiyo fanka loo yaqaan Telugu iska daa hadda lafiisa ayuu baqi doonaa bal markaan waxaan soo qaadan doonaa filimkii weyn lagu magacaabo Vikram Torona filimkan saaxiibada qiimaha bandhigtoogiisa wuxuu sameeyay 65% hoos u dhac ayuu sameeyay maadaama filimkan saaxiibada maalintiisa labaad ganacsi uu sameeyay uu noqday buur ayuu noqday ganacsi liita ayuu sameeyay markaan fiirno filimkan Vikram Torona hogaamiyaha Keja Sudeep saaxiibada qiimaha bandhigtoogiisa kaliya wuxuu soo xaray lacag gaarayso 11 karoor iyo bar ayuu soo xaray oo canshuurta ka hore qolay ajardaha qayb waxay ka heleen saami gaaray 6 karoor ay ka heleen filimkan saaxiibada markaan isku darno ganacsigiisa waxa loo yaqaan dibad idal labadiisa maalmood deytooga saaxiibada wuxuu maraya 36 karoor bar ayuu soo xaray qolay ajardaha qayb waxay ka heleen saami gaaray 19 karoor ay keeneen istilna filimkan ganacsigana kuma filna maadaama hadda la soo sheegay saaxiibada filimkan miisaanad ku dhow 100 karoor ay xambaarsan sida daraaddeed waan ka xunaa Keja Sudeep filimkiisa xayisiin balaan waa loo sameeyay sidoo kale waxa laga filayay wuxuu la imaadan waa kaafi kale filimkan ganacsiga kale u sameeyay barnaamijyadan dambe ay ku ogaan doontaan bal markaan waxaan soo qaadan doonaa filimka kale weyn lagu magacaabo Egvilan Ritan hogaamiye ka ah John Abraham Arjun Kapoor Disha Batani Tara Sutaria filimkan saaxiibada qiimaha badan asna ganacsi iska macquul ayuu sameeyay sida shabakada box office India shaaca ka qaaday filimkan maalintiisa kooda wuxuu soo xaray lacag gaarayso 6.85 karoor ayuu soo xaray ogaada qolyaha kale filimka ayagana waxay shaaca ka qaadan lacag gaarayso 7 karoor oo filimkooda maalinta koowaad uu keenay
waan wax la qaadan kara maadaama farqi u dhaxay labadan ay yihiin saaxiibada 15 la kaliya sida daraadii waxa leeyahay filimkan Equilibrium Return maalintiisa koowaad ganacsi macquul ayuu sameeyay sidoo kale waxa leeyahay filimkan wadadii jugtugtiyo camal ayuu mari doonaa maadaama leeyahay qaabka ku bilowday sidoo kale qaabka maalintiisa koowaad u sameeyay ganacsiga wuxuu ka agdhowayaa filimka lagu magacaabo jugjugjo sida daraadii saaxiibada qiimaha badan filimkan Equilibrium Return shakadiisana waa la amaanay sidoo kale filimkan ganacsi macquul uu sameeyay sidoo kale waxay u badan tahay sabti iyo xad filimkan ganacsi sarukac inuu sameeyo doono qurux badan oo qaadan doona sida daraadii filimka Equilibrium Return sida shabakada box office intii shaaca ka qaaday maalintiisa koowaad wuxuu soo xaray lacag gaarayso 6.85 karoor ayuu soo xaray sida daraadii filimkan ganacsiyada kale oo sameeyay barnaamijyada dambe ku ogaan doontaan bal markaan waxa soo qaadan doona Today Instrument oo kale aflaamta aan kala daaw saaxiibada maanta oo kale waxa la daaw filimka lagu magacaabo Monsieur Shati Garooge sidoo kale filimkan wuxuu kamid yahay filimada aadka loo jecel markaan fiirnay filimkan waxa la daa 3 July 2004 hogaamiyaasha filimkan waa ninka lagu magacaabo Salman Khan Akshay Kumar sidoo kale dhexdooda waxa ku jirtay Priyanka Chopra xitaa Amrish Puri gareed filimkan dooray ku lahaa waxaana director-ka filimkan ninka lagu magacaabo Dev Dono waxaana producer-ka ahaa ninka lagu magacaabo Sajid Nawala saaxiibada filimkan waxa la saartay atar gaar ah 550 shilin ayaa laga daawaday waxa loo qarashgay filimka miisaanad gaaraysa 19 karoor umraantiisana wuxuu xir lacag gaaraysa 29 karoor soo xaray sida daraadii filimkan wuxuu noqday hiddameysar ayuu noqday lacagta gaari 29 karoor sicirka maanta lagu jaangoyna almost wuxuu dhigantaa lacag gaarayso 100 karoor ayuu dhigantaa sidoo kale filimkan waxa tigidh goosto shaleemad ka daaw sida diiwaan gashan dad gaaray 481 qof ayaa tigidh goosto shaleemad ka daawatay filimkan lagu magacaabo Shati Garooge wuxuu kamid yahay filimada Soomaalidana aad ku jecel maadaama filimkan ay si kala soo leeyahay sidoo kale bandhiga jilaash ay ka sameeyeen inna baadi maan أنا أكل صاحب بدل بالمانت أو كلا فلان تلا داودي أنا سوق هذا كرنا حكى من الفيلم لقوم مجعوة أنسي أوبن تام إن موبايل فيلم كان وحلا داودي صدق كجولاي لقوده كوني تبانكي وجاميش فيلم كان واجيتي كان إمران هاشمي كان جان رنسوا كل فيلم كان واحد دايركتر كان من كل لقوم مجعو ميلان لوثاري وحنا بروديوسر كان دكتور لقوم مجعوة أكتكبر صاحب بدل فيلم كان وحلا صار تياتر جاري كنا فرق الله شلامة أيه لقى داودي وحلو قرش جري فيلم كان ميزان جاري صدق نشانكر عمران تسون حسوحر العق جاري كنت نزيد كرسي درادي فيلم كانت جام وحنا نقضي هدا ما يصير أيون نقضي لعقت جاريس كنت نزيد كرة سعر كمان تلاقو جانجوينا almost حول أنت لعق جاريس سجاش اللي حكر البر أيوة أنت سيدو كلو هذا فيلم كان واحد تجدو قصة شلامة كداوسة الديوان قصة جاري تبون مرين أوقف تجدو قصة شلامة كداوتين وحنا كمديا فيلم إمران هاشمي جيت يبقى اسمي كود لو جعليه أيوة كمديان أتكم سنتين صاحب الداش أضاعت المقالك على كسرنا برنامج كنا أبديت بوكس أوفيس كسر وكلمان تجلين قدام الأحياء سكرنا وسوق جد بنتونا ديتا مركب كور سوق بقول الجنال سبسكرايب نوصلنا اللي من المقالك لاج نوصلت أركتها كومنت نقرب هذا كمنت صاحب دورنا لجوا مقالك شرس صاحب ونكسن هذا كل الجنال كوكو صبر أنت برنامج كان برنامج لم يكن كل منه أما أنا الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.